Ka sheekee naftaada. Ka sheekee naftaada. Magacaygu waa Axmed. Waxaan jiraa 35 sano. Waxaan ka imid Soomaaliya. Waxaan Sweden imid 1994. Waxaan dhigtaa dugsiga Hillie Park Folkhögskola. Waxaan bartaa af Swedish si aan shaqo u helo. Maalmaha shaqada Isniin ilaa Jimce waxaan dhigtaa dugsiga ama waxaan tagaa maktabadda. Maalmaha fasaxa Sabti iyo Axad waxaan jeclahay in aan lugeeyo ama kariyo cunto. Magacaygu waa Axmed. Waxaan jiraa 35 sano. Waxaan ka imid Soomaaliya. Waxaan Sweden imid 1994. Waxaan dhigtaa dugsiga Hillie Park Folkhögskola. Waxaan bartaa af Swedish si aan shaqo u helo. Maalmaha shaqada Isniin ilaa Jimce waxaan dhigtaa dugsiga ama waxaan tagaa maktabadda. Maalmaha fasaxa Sabti iyo Axad waxaan jeclahay in aan lugeeyo ama kariyo cunto. Waxaan ahay xaas. Magaca xaaskaygu waa Faadumo. Waxay jirtaa 32 sano. Waxayna ku shaqaysaa kalkaalisnimo. Maalmaha fasaxa waxay jeceshahay in ay dubto doolsho ama daawato madeysi aflaam. Waa qof deeqsi ah. Waxaan ahay xaas. Magaca xaaskaygu waa Faadumo. Waxay jirtaa 32 sano. Waxayna ku shaqaysaa kalkaalisnimo. Maalmaha fasaxa waxay jeceshahay in ay dubto doolsho ama daawato madeysi aflaam. Waana qof deeqsi ah. Waxaan leenahay 2 carruur ah. Gabadhayadu magaceedu waa Ayaan. Waxayna jirtaa 5 sano. Waxay dhigataa dugsiga xanaanada. Waxayna jeceshahay sawir-samaynta iyo ciyaarta. Wiilkeennu magaciisu waa Cabdi. Wuxuu jiraa 8 sano. Wuxuuna dhigtaa iskuul. Isagu wuxuu jecel yahay kubadda cagta iyo muusigga. Waxaan leenahay 2 carruur ah. Gabadhayadu magaceedu waa Ayaan. Waxayna jirtaa 5 sano. Waxayna dhigataa dugsiga xanaanada. Waxayna jeceshahay sawir-samaynta iyo ciyaarta. Wiilkeennu magaciisu waa Cabdi. Wuxuu jiraa
8 sano, wuxuuna dhigtaa iskuul. Isagu wuxuu jecel yahay kubadda cagta iyo muusigga. Waxaan deganahay guri ka kooban 3 qol iyo jiko. Qolka jiifka waxaa yaalla sariir iyo armaajo. Derbiga waxaa suran sawirka qoyska. Qolka carruurta waxaa yaalla 2 sariirood iyo armaajo buugaag ah. Qolka fadhiga waxaa yaalla kursi fadhi oo weyn, miis, iyo maqal iyo muuqaal TV. Dhulka waxaa ku fidsan roog cagaaran. Waxaan deganahay guri ka kooban 3 qol iyo jiko. Qolka jiifka waxaa yaalla sariir iyo armaajo. Derbiga waxaa suran sawirka qoyska. Qolka carruurta waxaa yaalla 2 sariirood iyo armaajo buugaag ah. Qolka fadhiga waxaa yaalla kursi fadhi oo weyn, miis, iyo maqal iyo muuqaal TV. Dhulka waxaa ku fidsan roog cagaaran. Gurigeenu wuxuu ku yaal bartamaha Malmo. Waana ku qanacsanahay. Waxaa gadaasha guriga ku yaalla goob ciyaar. Halka ka horeysa guriga waxaa ku yaalla bas istaag. Kirada guriga waa 8,000 oo karoon bishii. Gurigeenu wuxuu ku yaallaa bartamaha Malmo. Waana ku qanacsanahay. Waxaa gadaasha guriga ku yaalla goob ciyaar. Halka ka horeysa guriga waxaa ku yaalla bas istaag. Kirada guriga waa 8,000 oo karoon bishii. Magacaygu waxaan jiraa Soomaaliya, dhigtaa dugsiga, bartaa maalmaha shaqada, maktabadda maalmaha fasaxa, jeclahay, lugeeyo, kariyo, cunto, baasto. Digaag, xaas, kalkaalisnimo, doolsho, aflaam, carruur, gabadhayadu, wiilkeennu, sawir samaynta, ciyaarta, kubadda cagta, muusigga, deganahay guri. Jiko, qolka jiifka, sariir, armaajo,
sawirka qoyska, qolka fadhiga, kursi fadhi oo weyn, miis, rooga, bartamaha, bas istaag, kirada. Wixii talo iyo fariin ah noogu soo dir waxbarasho.org@gmail.com. haddii aad doonayso cashiro kale inaad ka dhagaysatana ama ka raacata boggana waxbarasho.org ku qor youtube-ka, saas ayaad ku helaysaa meesha ay cashirada ku jiraan. Subscribe-kana ha naga iloobin si ay cashirada cusub kugu soo galaan ama aad ula socoto.